senatarka dowlad goboleedkan Gaarisa Super Senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo goobjoog ka ahaa kulankii maanta looga arrinsanayay BBI-da ayaa sharaxaad ka bixiyay arrimaha BBI-da. madaxweynaha wuxuu gartay in waxa aan soo qornay ummadda lagu soo celiyo markaa ka bacdi la kala saaro waxaa annaka maxaan qornay in shacbiga wuxuu ay codsadeen sagaashan arrimood oo lala xilsaaray wixii shacbiga ay ka hadleen ma annaga soo qornay ilaa laakiin hadda waxaanu yidhaahdeen ummadda lagu celiyo marka ayaka markay waxay ka qabaan ay sheegaan in aan u kala saarno saddex meel sharci ahaan wixii baarlamaanka iyo sanadka la geynayo in aan haddana kala soctorno midii labaad waxaa la wixii ummadda weyn loo geynayo referendum ahaan loo geynayo inaan idana aan ka factirno aan dhahno arrimahan waxay u baahan yihiin maaragta in referendum la geeyo midii saddexaad iyadana inaan haddana kala saarno wixii xagka referendum xagka sharci baarlamaani arrintii saddexaad wixii cod oo dowladda ay maaragta ku amriseen karto idaareyaha iyo countiyaasha laga rabo in la uurfuro marka siduu gobnarka uu sheegay in macdareyaal dabeeshan BBI beri bay u socotaa dabeelna bini aadam ma horjoogsan karo waa wax qudra ilaahay ku socota marka annaka ayaanan ka helin dabeesha markay u socoto maxaa waxaad dantayna ku jirtaa soomaalidaan qabnaa dhibna ilaahay baa loo sheegtaa ilaahay baa na qaadi kara laakiin wixii bini aadam uu qaadi karana leanna dowladda ayaa waddanka maamusaa waan la tacaalaynaa sidii ma aragtaa arrimahaasaytoo logala hor qaadi lahay markaas si soomaali waxaa la dhahay soomaali been waa sheegtaa laakiin been kuma maahdo rag walaalo wuxuu ku dhaamo madax haddana arrimuhu kala siiya haa rag min madaxe in sharti loo dhigo ma aha min madaxe waddankan hogaaminaya 47 milyan walaalow bay ku fiicanta moogiye haddii la dhaho shartiga loo dhiga haddii marooda ahaan uu ku soo abaaro adinka ka geli marka aan tartiibsanno waxayna maqan aan raadina waxaa maanta hadda loo daran maxaa weyaan muhiimta iyo maxay dhahayeen ammaanka madaxweynaha waa la hadalnay isniintuu nafaas la siiya waan hortegaynaa wixii qabno waan sheeganaynaa soo saas maaha